waxa weeyaan ninkaa odagii inantaydii sifo sharci oo uu kula maqan yahay uu kula maqan yahay horta ma jirto annaga xagga iyaga oo sharciyaysantahe sifo sharci daraa waana ku haystaa haddaba sharciga iyaga anunkaba waxaanu leenahay warqadda yar oo sidataana uu sitaanaa niman wax garan laa ma nihin niman wax garanayaanu nahay niman xaalad tallaabo kastuu qaadan garanayaanu nahay anigoo ah Mustafa Ismaan Cali foodcadde ahna inantii shalay halkan ka hadashay xildhibaan Barkad Jaamac Batuun xaaladiisa ka hadlaysay ee lahayd waa gabadha waa ninkaygii oo reerkayga ay siiyey adeerkeed baanay oo ninkaa dhintay aabbaha u ahaa Cabdinaana la odhan jiray walaalkii baanay waxa weeyaan maadaama aabaheed uu dhintay halkii aabaheed aniga ugu jira oo ah dee mas-uulkeedii aniga ah maadaama haddaba aan mas-uulo ahay xaaladdaa shalay tole ay hadashay inantaan adeerka u ahaa ee Mushtaaq Cabdi Cismaan waxa weeyaan runtii dee fal uu sameeyey ninkaa la leeyahay xildhibaan Barkad oo uu kula kacay inantaan waalidka u ahay adeerkaan u ahay ayaa jiray falkaas oo ahaa midaan diinta iyo akhlaaqda iyo sharciga midnaba aan ma garanaysa ayay waafaqsanayn haddaba iyadoo taa hore ay dhacday oo ninkaasi inantaa aan adeerka u ahay uu faraxumeeyey xaalad adagoo xunna uu ku sameeyey ayaa haddana waxaa dhacday in uu inantii qaladkaa uu ku sameeyey oo haddana inantii isaga oo aada mooddo inuu toojar garaynayo oo uu ku toojar garanayo ama ku abiyus garaynayo in inantaasi waxyaalo ahaan imika hadalkee shalay keenay ay ku hadlaysay iyada isaga weliba uu isticmaalayo waxyaalo iyadoo aan shaqadeedaba ahayn maadaama dee had iyo jeer marka arrimo noocan oo kale ay iyadoo leedahay waa ninkaygii Barkad waa caynkan dadka cadowga ah waxaana leedahay dee haddii wax dee sharci jiraan ama saxi jiraan dee isagaa kii hadli lahaa ahaa ee odhan lahaa waa gabadhaydii isagaa warqadda yare xune beentaa soo qaadan lahaa ee odhan lahaa oo taa warqaddii waxaa odhan lahaa haddaba waxaan u sheegayaa inantaan waalidkii u ahay ee ninkaasi uu abiyus gareeyey uu xun ku sameeyey maaha wax aanu u dul qaadan karno oo diinta iyo dhaqanka iyo islaamnimada midnaba ay ogashay wax uu ku sameeyey marka hore haddana in inantaydii miidiya noo soo fadhiisiyey annagii oo uu yidhaahdo inta waxaa dheh oo sidaa u hadalo sidaa dheh oo halkan soo istaagtay tirahda ninkayga tiraahdo waxa weeyaan xagga sharciga diinta islaamka iyo xagga sharciga laftiisa qaanuunkaba ayaanu arrinkiisa uga fadhinaa waxaa intaay dheer iyadoo taasi jirto inuu yidhaahdo halkan ay leeyahay ku dheh reerkaygii bay siiye ay leedahay waxaan caddaynayaa anigoo dhammaan reerka ka mas-uula oo reer foodcadde reer Cabdinaano dhammaantood anigu aan mas-uul waxa wakiil aan anigu odaygeedu ahay oo ninkii aniga iga weynaana mas-uuliyadda reer foodcadde igu ogyahay oo aanu Hargeysa joogina uu joogo Ethiopia authority-geedana uu ii siiyey anigu inaan odaygeedii ahayd ee inta joogtaana oday u ahay waxa weeyaan waxa aan leeyahay ninkaa isaga oo shareecada diinta islaamka in ninkaa warqadda yare ay sidatay leedahay waa meherkii waxaan caddaynayaa in aanaan anagu reer ahaan maadaama reerka wakiil ka ahay aanaan horta ninkan inantan aanaan siinba waxaanay ku hadlaysaana wax lagu abiyus gareeye ay tahy waxa weyaan haddaba ninkii inantayda sidaa u faraxumeeyey u xumeeyey uma dul qaadanayno inuu haddana marka inantaydii noo isticmaalo kulba TV noo soo fadhiisiyo weliba haddana waxaananu ka fadhinaa weliba sharciga in ninkaa aanu dacwadiisa eediisa iyo wixiisaba aanan u kala reebin warqadda uu isku difaacayana aanay ahayn warqad mehera oo siina aanay ahayn xaaladda lagu jirana ay ahayd xaaladii ay iyadu xidhnayd xadhigeeda ay xidhnayd ay ahayd
oo aaladda taallay ahayd waar inanta sideen u sii daysaan haddaba siideyntii markii ay socon weydayna aan warqadan ay sidato si aan uga sii dayno stationka aan warqadan u isticmaalnay siideynteeda maaha intii laga dhigo oo iyadii la yidhaha hadalo waa meher oo tii lagu meheriye la yidhaahdo iyadana caddaynteedii wixii faahfaahina dheeraadana sharciga iyo halkay leeday ayaan ku dhammaystirina wixii halkaa warqadaa yare ay sitaan ay sita lahayd waa tii meherka iyaga ahayd ay leedahay meher may ahayn mananaan siin maan siin cid siisay ma jirto anigu adeer baan ahay walaalkeed baa waaligeediya waxa weeyaan oo bixinteeda la dee walaalkeedna aniga isagoo jooga in la yidhaahdo oo mustafa bixiyo adeerkeeda hore taana naloogu daro weliba ayaa dembiya waxaan caddaynayaa haddaba yare la leeyahay waa meherkii warqad mehera may ahayn waanu caddaynaynaa hay-adaha sharcina waxa weeyaan waanu ka caddaynaynaa iyo ciddii ku shaqo leh haddaba ka codsanaynaa dowladda iyo xukuumadda iyo dee dalka caalam baa ka jiro sharci baa ka jira ninkaa in sharciga la mariyo annaguna caddeymahayagii iyo waxayagiiba ay noogu dhamaystiran yihiin haddii taasi dhici weydo dee waxa weeyaan ma nihin niman ka hadhaya oo annagu hawlahooda ma garanaysa ay garan waayaya annagaaba tallaabo sharciga ka qaadi doonaa haddii ninkaasi waddada ay leeday la marin waayo waxa weyaan haddaba ninkan waa xildhibaan buu sheeganayaa sharci yaqaan buu sheeganayaa diin islaam buu garanayaa oo leeyahy waan aqaanaa diinta islaamka lafteeda ayaanu leenahay culimada bal arrinkan weliba isagoo sameeyey haddana weliba waxaana la soo leeyay iyadii ku toojar garaynay ku qasbayo leeyahay sameeye kolba t v lasoo istaag haddana dembigal kalaa weliba sii ah waxa wallaahi bilaahi otallaahi inaanan ka yeelen kana dul qaadaneyn hay-adaha sharcigana waanu uga fadhinaa waananu maraynaa broseskii sharciga wixii annaga waajib nagu ah waananu dhamaystiranay haddii wax laga qaban waayana waxa weeyaan de waanu dhamaystiranay makadan lafteeda waanu isku dhannay waanu dhamaystiranay waxaana weeyaan markaa annagu niman wax ka lumayaan ama de wax ka maqan aan de ka daba tegi kareen ma nihin annagoo taa garanaynaa haddana nidaamka dalka sharci baa yaalla calan baa jira in la dhaafo maaha annagoo kaa ku dhamaystiran doona waxayga maadaama ninkaasi inantayadii sidaa u xumeeyey inantayadii annagii noo isticmaalayo oo waxaan oo ilaa hadda inantayadii ilaa maalintaa isagu haysto oo meel olyaalo meel geeyey iyo meel ay joogtoba anaan ogeyn waxa weeyaan haddaba ninkaa dhaqanka noocaasa xun sameeyey dowlad baa iyo dal iyo calan baa ka jira meesha cidda qaldantana de waxaa loo samaystay sharcigan iyo nidaamkan in waajibkeeda lagu mariyo waajibkeedana haddii ilaha idhahdo waxba ka hor dhici mayna wuu marayaa waana la marin doonaa eedaysanayaasha wax sameeyo baanu la mid yahay walaa sharcigana waa loo siman yahay waxa weeyaan haddaba taasun baananu marinaynaa warqadda yare u sitaana waxay ahayd bay noqon doontaa iyo sife ay kusoo baxday bay noqon doontaa waxaananu ka caddayn doonaa hay-adda sharciga ku shaqale waxaan ee baaristeeda le iyo waxeeda waxaa kaloon leeyahay in la siyaasadeeyo maaha inanta yare caruurta ninkaasi faraxumeeyey in la siyaasadeeyo maaha ragga waaweyn ee inanta ninkaasi xumeeye waxaa ku sameeyey hambaliyo facebooka ka soo haya warda inantaana waalid u ah oo adeero ah inantan cid bixisay iyo cid siisay ninkan ma jirto maadaama aanay jiro cid bixisay oo siisay maaha in facebook iyo meel kale laga hambaliyeeyo maaha baan ku yihi cid kasta oo qaladaad nagula kacdo oo xaggaa ku saabsan iyadoo cidin waxba aanay naga weydiin inantaana ninkaasi sifa sharci aanaan ku siinin kama yeelayno cid kastoo qalad ay leedahay inantaasi soo qorta kagana hari mayno waxaan leeyahay gruubka ku shuraakoobay xisbiga wadani la idhaahdo ee ninkan dabada ka riixaya waxaa la yaala waxaa u qaban karaysaan ma jirto wallaahi o bilaahi oo tallaahi inaydaan waxa la yaala waxa u qaban karaysaa jirin waxa weeyaan inanta inaan adeerku ahan waalidka waaye
adeero cidda kasta oo ciddidaa iskageeda ku samaysaa kaga daba hari maayo. waxaan idin sheegayaa kale maqnaanshiyaha ay naga maqan tahay mushtaaq waa mid oo ninkani isagu maamulanayo oo annaga ka baxday oo isagu inantiida iska maamul oo ku baleeyo weliba stando halkaas xaafadda isagoo saadhe. waxaan u sheegayaa haddaba taana dee waa dembi iyada lafteeda dembiya oo kale ah. dembiyada ninkana waa fara badan yihin iyo eedihiisuba maadaama ay fara badan yihiin oo eedihiisu iyo dembiyadiisuba ay fara badan yihiin hay-adaha sharci un baanu marinaynaa. sharcigaasun baanaan ku kala calaf qaadaynaa kagana hadhi mayno. warqadiisa yarnaa ee uu leeyahay lacag baa ku taallo meheraa ku taallo oo Mustafa siiyey oo ama waxaana ciddana bixisa laleeyahayna waxaan kitaab jaamaca ku marayaa inaanay waxba ka jirin oo ay ahayd furdaaminta mushtaaq siideynteeda ay ku saabsanaydin warqadaas. waxaa kaloo idin sheegayaa xaalad adag bay ku jirtay iyadaa dambiilahay ahayd. waxa weyaan ilmahay dhashay bay tuurtay. waxaa loo haystay ilmihii ay tuurtay ayay dee ku xidhnayd oo loo haystay mushtaaq. ninkana muu xidhnayn dee inantan adeerka wahay baa xidhnayd. waddada keliya noo furnayd aan lahayn bal iyadoo umula ilmihii tuurtay haddana waanay xidhan tahay sideenu ku sii daysaan. waxa weyaan adigu inantaa siideynteedii markii ay adkaatay siideynteedii warqad nootaayo ma nootaayaa noqoto oo sheekh baa meheriyey sheekh muu meherin nootaayo maan warqad ka qornay annagoo ujeedadeedu tahay inantaa xidhan ee ilmaha tuurtay ee kiiska xun ku xidhan ee uu ninkaasi faraxumeeyey iyadoo ujeedadeedu tahay sidaanu meesha uga soo daynayn. warqadana waxa weeyaan waa mid inantaa la faraxumeeyey oonaanu kaga soo daynaynay xadhigay xidhnayd. ninkana meesha muu ol ninkana muu xidhnayn. ninkan waxa weeyaan hawshiisa laguma jirin. inantan waalidka u ahay ayuunbaa xadhigeedan ay xidhan tahay adeero warqadan uu isleeyahay isku difaac aanu ka caddaynaynaa. sifo kasta oo ay warqadaasi leedahayna waanu isla garanaynaa waananu garanaynaa inay ahayd warqadaa furdaaminta. muhiimadda dilucda waxa weeyaan beentu ninkani inantan marka horena ku xumeeyey ee uu ku fara xumeeyey ayuu haddana weliba imika iyadii uu noo soo isticmaalaya oo kulba midiyaha leeyahay soo istaag. lama yaabanay isaga iyo iyada toona. waxaa la yaabanay ragga facebooka iyaguna mashruuca ka dhigtay ee waaweyn. waar anugu adeerkeed baanay inamada walaalaha waanu wada joognaa walaaladii ilmo fadcadayn naga wada joognaa. waxa weeyaan adeerow annagoon bixin inantaa oo aan siinin ninka cidda ka hambalyaynaysa buugga oo qaladaadka noocaasa facebooka nagaga jira annaga laftayada laydinkaga hadhi maayo oo wallaahi oo bilaahi oo tallaahina ana idinkaga hadhin. nin walbana waan isgaranaynaa isku reerayna wadanay kulligeen. nin walba wuxuu geystay waa laga goynayaa baan ku uri ina cumar doolow adiguna lambar one kaati welibe maadaama inantaada adeer sii ahayd adigu iyo aynu inagu sii garanayno oo xaafadeen isku mid ahaayeen badheerkaad samaynaysay yaana kaa weyn hadhowtole. waxaa kaloo jirtaa inantayadii anigu dee aan waalidka u ahaa ilaa maalintii saldhigaan ka soo daayey maxamuud qolaa dheer ilaa abtunow inantaasi annaga gacan aanu leenay kumay jirin manay ku jirin. siideyntii kadib waxa wallaahi oo bilaahi oo tallaahi aanan arag nin reer cabdinaana ama reer food caddaa ama reer dhab isu wada geeyo dhammaan food caddaaba wada dhao nin arkay naguma jiro. waxaanay ku jirtaa gacantiisa iyada oo inantaa annagoo aan u haysanaba inuu toojargaraynayo waxaanay ku hadhadlaysa leedahay macaa annaga inantaydii qof caadiya bayn aanay hayn baan u haysanaaba annagu. waayo dee markay inantaydii annagii cid kale ay maamulanayso waxa weeyaan annagu in inantaydii la toojargaraynayo baan u haysano xoog lagu haysto dee taasna dee waxa weeyaan waanu caddaynaynaa oo waxaanu leenahay ninkaa aad arkaysaan waxaan sameynaya facebookyada iyo meel walba kaga taageeraysaan ku taageersantiin qoladiina reer wadaniyow waxa weeyaan xaalad dhabta xaqiiqdii waa sidan.
ninkaasina inantii la hadda gacantiisa ku jirtaa meeshuu geystayna isagaa garanaya waxa weeyaan haddaba niman wax garan laa ma nihin niman wax garanayaanu nahay niman xaalad tallaabo kastuu qaado garanayaanu nahay waxa weeyaan ninkaa odagii inantayadii sifo sharci oo kula maqan yahay uu kula maqan yahay horta ma jirto annaga xagga iyaga oo sharciyaysantahay oo aanu sifo sharci darraa waana ku haystaa haddaba sharciga iyo qaanuunkaba waxaanu leenahay inantayadii sidaasuu ku haystaa qaanuunka iyo sharciga meel walba waxaanu leenahay sifaha sharci darre ee ku haysta inantayadii waa midaan lafteeduna dembi kale ah iyaduna waana dembi kale oo eedihiisa mid ka mid a weeyaan iyaduna waxa weeyaan inantaa maadaama uu sharci darrada ku haysto waxaan uga fadhinaa qaanuunka manu iyadana uga fadhinaa sharci darrada uu samaynayo ee uu ku haysto maadaama ana sifo sharci anaga dee inantayadii aanu ku haysantay kuna ya wasalaamu calaykum waxa weeyaan ninkaa odagii inantayadii sifo sharci oo uu kula maqan yahay uu kula maqan yahay horta ma jirto annaga xagga iyaga oo sharciyaysantahay sifo sharci darraa waana